muuqaalkeena maanta waxaanu ku qaadan doonaa football posterka xagan kaaga muuqda inaynu sameeyno insha Allah taala oo aan step by step isu raaci doono intaana casharka bilaabin fadlan haddii aad channelka cusub tahay subscribe noo saar like nagu dhiirigelisi muuqaalkeena dad fara badan u gaadho lana wadaaga asxaabtaada oo sii share garay wixii faaleed qabtana commentiga hoose noogu reeb marka haddii aanu casharka iska bilowno marka hore waxaanu doonaynaa inaynu football posterka noocan u eg aynu sameeyno inagoo markaa hal koox ka dhignay sababtaan halka koox uga dhignay waxa weeyaan si aad adigu takalo u samayso oo imika anigu maadaama aan Chelsea sameeyay aad adiguna Leicester City samayso waa labada kooxood ee aan doonaynay in football posterkooda sameeyno marka waxaan tagayaa marka hore file kadib new baan leeyahay new markaan idhaahdo halkan waxaan soo dooranayaa print baan tagayaa kadib waxaan dooranayaa A4 marka A4 waxaan dooranayaa portrait oo taagan kadib halkan waxaan ku qoranayaa football poster ayaan ku qoranayaa football poster markaan ku qorto kadib waxaan sameynayaa RGB colorka inaan ka dhigto resolution kana 300 ka dhigto ciladaha ardayda qabsado waxa kamid ah waxa weeyaan inuu resolution ka qofku intuu 70 oo kala ka dhigo uu design-kii sameeyo markuu design-kii sameeyo social media soo galis yiraahdo kadib uu shuuca kaga furmo design-kii waxaana keenay waxa weeyaan low resolution ka ama resolution ka aad ka hooseeya marka waxa isku dayaysaa inaad ka dhigto resolution ka 300 baan ka dhigtay anigu football poster baan magacii ku qortay kadib create baan leeyahay create marka ay raado waxay soo bixi doona background-kan cadaanka ah waxaan sameynayaa marka inaan horta si aan color-ka u helo background-ka ah waxaan soo qaadanayaa color ciyaartoy marka ciyaartoyda waan la soo wada degay open markaan idhaa saddexdan ciyaartoy qaabkan igu soo baxaan ayaa waxaan sameynayaa horta inaan background-ka ka saaro marka background-ka markaad ka saarayso haddii aad isticmaalayso Adobe Photoshop version-nadii dambe sida 2021 iyo 2022 wuxuu leeyahay qaab automatic inuu kaaga saaro ama qaab auto remove background inuu ku sameeyo oo soo kaaga saaro AI soo ku select garanaya marka logaad marka hore ka qaadaysaa kadib layer caadi markaad ka dhigtay select garayso waxaad tagaysaa properties kadib waxaad dooranaysaa xagga hoose aad arkayso quick sections koostooda remove background marka haddii aan imka click idhaahdo background-ka ayuu iga saari doonaa in yar baan yara sugayaa marka background-ka ayuu sida ugu wanaagsan ee uga saari karo inkasta aanu sida ugu fiican uga saarin oo haddii aad arki karto dhinacyadan oo kale uu googoynayo laakiin wuxuu sameynayaa inuu si fiican iga saaro halkii selection-ka anigu sameynayo waqti fara badan iga bixila kadib waxaan sameynayaa inaan isaga doorto xaggan aan soo wareegayaa halkan aan dhiganayaa halkan markaan dhigto waxaan sameynayaa inaan doorto layer-kii hoose background-ka kadib logo aan ka qaado aan tago halkan hoose kadib aan solid color doorto aan markaa color-ka xagan ka soo qaato waliba waxaan soo qaadanayaa labada color ee isku dhex jiga ka bright-ka ah ayaan qaadanayaa kadib okay baan leeyahay kadib control waxaan leeyahay waxaan dooranayaa kan sare control T baan leeyahay kadib waxaan sameynayaa saa u soo weyneeyo aan halkan dhigo kadib aan check idhaahdo markaan check idhaa waxaan sameynayaa waxa weeyaan inaan ciyaartoydii kalena soo qaato hortaan iska xidha kan waxaan sameynayaa kan kala tago isaga laftiisa logan ka qaadaya properties baan tagay remove background baan leeyahay background-ka la iga saaraya marka isagana in yar baan yara sugayay inta background-ka laga saarayo kadib aan soo qaadanayaa halkan baan dhiganayaa kadib control T baan leeyahay waxaan sameynayaa inaan soo yar weyneeyo aan intaasoo kale soo leekisiyo aan xaggan u durkiyo kadib check baan leeyahay haddana halkan aan tagay kan baan waxaan sameynayaa inaan layers ka tago kadib aan logo ka qaado waxaan sameynayaa markaa inaan isagana properties ka tago kadib aan background-ka isagana ka saaro in yar baan yara sugayay inta background-ka laga saarayo marka background-ka qaabka looga saaraan isagana soo qaadanaya kadib halkan aan soo dhiganayaa control T baan leeyahay isaga laftiisa aan yara weyneynayaa qaabkaas aan yara weyneynayaa kadib waxaan sameynayaa inaan halkan aan soo dhigto marka waxaan sameynayaa labadan qof maadaama labada jaw kala jeedaan waxaan sameynayaa inuu kalena dhexda ka muuqdo labadana ay garbiisa ay qariyaan yaani laakiin isaga weynaanta leekaanin halkaas aan dhiganayaa kadib waxaan sameynayaa color-kan background-ka baan dooranayaa kadib waxaan tagayaa brush-kayga brush tool-ka markaan tago waxaan dooranayaa soft brush-kan dooranayaa kadib halka opacity-guna 60 buu yahay waxaan sameynayaa inaan background-ka click ku dhaho kadib aan ku idhaahdo marka uu ii weyn yahay haddii aad arkayso brush-ku intuu leegi kadib waxaan sameynayaa inaan saa idhaahdo marka xagga hoose wuxuu iga soo gelinayaa madow yar saasaan leeyahay kadib saasaan sii leeyahay saasaan ku daynayaa kadib check baan leeyahay waxaan sameynayaa marka waxay hadhay haddii aan xagga u noqdo inaan soo qaato shaxanada yaryar kadib shaxanadan iyaga laftooda waxaad kala bixi kartaa waxaad kala baxaysaa waxa weeyaan PSD-ga aan description-ka idin dhigayo ayaad kala bixi doontaa halkan baan markaa dhiganayaa halkan bay soo gelayaan kadib waxaan sameynayaa inaan kan horta aan halkaa yara dhigto kadib kan shabag aan saa soo dul dhigo haddana waxaan sameynayaa inaan kan kala soo qabto aan halkan soo dhigo isagana aan saa document-ka u leekaysiiyo markaan qaabkan u leekaysiiyo labadoodan isku select gareynaya kadib background-ku ma ka sareysiinaya
ciyaartooyda xagga hoosan ka marinayaa kadib waxaan samaynaynaa in yar saa yar durkiyo kan footballka ayaan saa yar durkinayaa kadib check baan leeyahay markaan qaabka u sameeyo ayaan xaggan soo noqonayaa waxaan samaynayaa waxa weeyaan markaa waxay hadhay waxa weeyaan inaan sameeyo inaan ciyaartooyda horta aan yara masaxo aan soona qaato garoonkii ayay hadhay labadan baa horta iska soo xidhayaa labadan markaan iska soo xidho file baan tegayaa open baan tegay kadib waxaan soo furanayaa garoonkii kooxda markaa waxaan soo qaatay waxa weeyaan garoonka kooxda home-ka ah ama lagu ciyaaray gurigeeda oo waa garoonkii Chelsea maadaama garoonka Chelsea lagu ciyaaray kii Chelsea ma soo qaatay kadib waxaan samaynayaa inaan xaggan dhigo aan halkaas u dhigo control T baan leeyahay kadib waxaan samaynayaa inaan saa u soo weyneeyo aan xaggan hoose saa u dhigo kadib check baan leeyahay waxaan samaynayaa markaa inaan soo qaado aan halkan soo dhigo waxaan samaynayaa waxaad arkaysaa kan haddii aad arkayso haddii aan kan meesha ka qariyo xaggan hoose waxaad arkaysaa kani ma leeka documentiga markaa saasaan ugu fadhiisinayaa kadib waxaan samaynayaa inaan garoonkii visible ka dhigo waxaan dooranayaa garoonka halkan waxaan tegayaa effectka markaa waxaan ka dhiganayaa soft light ayaan ka dhiganayaa kadib intaa yar xaggaa ka muuqata si aan uga masaxo waxaan samaynayaa waxaan tegay eraser-tida right click baan leeyahay eraser tool baan dooranayaa soft brush markaa waa inuu doornadaa ama softigaas waa inuu doornadaa kadib waxaan yara weysanayaa cabirkan yara weynaysanayaa waxaan samaynayaa markaa inaan saa xaggaa sare aan uga masaxo si ay au erjiga go'aan uga haro markaan qaabka u masaxo markaa waxaan samaynayaa waxa weeyaan ciyaartooygan baan control T leeyahay kadib waan weyneynayaa check baan leeyahay kadib waxaan samaynayaa inaan kan kor u soo qaado kana aan kor u soo qaado markaan labadan saa kor ugu soo qaado ayaa waxaan samaynayaa inaan camera raw filterka ku apply gareeyo camera raw filterkuna waxa weeyaan haddii aan xaggan u soo noqdo kan iminka sawirkan sida asalka ahayd ma haddii aan control C idhaahdo qaabkan marka hore ah haddii aan shift control C isla qabto waa markii aan edit gareeyay markii aan edit gareeyna saano marka waxaan samaynayaa waxaan tagay filterkayga camera raw filterka halkan aad ka edit gareynaysaa markaa doonaysaa inaad sawirka edit gareyso waxaad tagaysaa basic-ga kadib waxaad samaynaysaa exposure-kaad ku yar dalaacaysaa iftiinka kadib waxaad samaynaysaa haddana contrast-kaad ku yar dalaacaysaa haddana waxaad samaynaysaa highlights-kaad saan u celinaysaa haddana waxaad samaynaysaa shadows-kaad saa yara leedahay saas soo celinaysaa haddana waxaad tagaysaa texture-kaad saa yar dalaacaysaa waxaad tagaysaa clarity-kaad saa yar dalaacaysaa kadib waxaad samaynaysaa vibrance-ka ayaad xaggan u yar celinaysaa midigta saasaan u yar celinayaa kadib waxaan tegayaa detail-ka haddana waxaan samaynaynaa sharpening-ka saa yar dalaco marka qaabkaas aad u edit garaysanaysaa cancel baan iska leeyahay mar hore aan edit garaystay yes baan leeyahay waan iska cancelayaa marka waxaan isticmaalayaa camera raw filterkayga hore marka aan iska soo xidho ciyaartooygan kuwanaan markaa ku apply garaynayaa kanaan dooranayaa waxaan tegayaa filter camera raw filterkayga hore igu diyaarsanaa ayaan ku apply garaynayaa haddii aad arkaysa yar markaan ila sugo oo kaas kanaan dooranayaa waxaan tegayaa filter kadib waxaan dooranayaa camera raw filter marka filterkan ayaa la igu apply garaynayaa nimka kan ku soo apply gareeyay kan kala aan dooranayaa waxaan tegayaa filter waxaan dooranayaa camera raw filter yar baan yara sugayaa marka camera raw filterka waa la igu apply garaynayaa kadib hadda waxaan samaynayaa inaan masaxo kanaan dooranayaa kadib waxaan samaynayaa inaan eraser-teeda tago kadib aan saan u yara masaxo kadib waxaan dooranayaa ciyaartooyga kanta xagga hoose kadib saasaan u yara masaxaya isagana waxaan tegayaa haddana kan kale ayaan dooranayaa kadib waxaan samaynayaa inaan saa u yara masaxaya isagana kadib kanaan ku soo noqonayaa saanaan u yar masaxayaa halkaasaan gaarsiinayaa intaa markaan masaxo kadib waxaan samaynayaa kan laftiisa waan masixi karaa gacantan saanaan u masaxayaa qaabkaa markaan u masaxo waxaan samaynayaa waxay hadhay waxa weeyaan haddii aad xaggan ku arkayso inaan match day ku qoro halkaa markaa textka qaabkaan u qoray waxa weeyaan waxaan soo dooranayaa text toolka kadib halkan baan click leeyahay waxaan samaynayaa inaan halkaa ku qoro aan match day halkaa ku qoro match day markaan qoro kadib control A baan leeyahay colorka ayaan waxaan ka dhigayaa cadaan kadib okay baan leeyahay check baan leeyahay markaa control T baan leeyahay kadib waxaan samaynayaa inaan saa u soo weyneeyo qoraalkii aan kadib halkan soo dhigo in yar baan saan u yar celinayaa xaggan kadib waxaan samaynayaa inaan haddana xaggan aan saa uga soo yareereeyay iyadana gudaha soo geliyo kadib waxaan samaynayaa check baan leeyahay waxaan samaynayaa markaa inaan qoraalkaygii kala koobiyeysto control iyo J baan leeyahay markaa ka koobigaaba waxaan samaynayaa inaan filka halka haddii aad arkayso qaybtan fil iyo opacity isku yaal markaa filka ayaan 0 ka dhigayaa xagga hoosena waan marinayaa kadib waxaan tegayaa effect waxaan tegayaa stroke kadib waxaan gelinayaa stroke laba ah oo cadaan ah okay baan leeyahay kadib waxaan samaynayaa inaan saa soo yar dhaqaajiyo waan saa soo hoos dhigo kadib waxaan iska leeyahay check qaabkaasaan markaa kan u sameeyay haddii aad arkayso xaggan baan soo noqonayaa waxay hadhay waxa weeyaan inaan xagga hoose
aan ku qoro haddii aad arkayso xaggan hoose aan informationka ku qoro kooxda waxaan sameynaya xaggan aan soo noqonayaa kan markaan garoonkan iska xidho mar walba kan iska xidhaya kadib waxa yahay waxa weyn haddii aad arkayso filteradan garankii baa iga cadaaday filter baan tegayaa mar row filter baan tegayaa kadib waxaan sameynayaa ciyaartoy walba aan gaarkiisa u yara habeeyo waxaan tegayaa markaa qaybtan basic aan tegayaa kadib waxaan sameynayaa saa idhaahdo blue ku soo celiyo kadib aan sameeyo inaan xaggan hoose u kaco kadib aan preference ka saaro idhaahdo si uu blue u yara muusmo qaabkaas markaa ku diinaya haddii aan okay imka idhaahdo ciyaartoygani saxdii bay noqon doonaa qaabkaasaan doonaya markaa inuu review yiraahdo kalarku waxaa yaadhay markaa inaan ku qoro macluumaadka markaa qaabkan aan u qoray oo qoraal caadiyoon ayaan ku qoray kadib waxaad sameynaysaa inaad iska soo qaadato aan iska soo qaadanayaa maadaama qoraal caadi iska yihiin halkan baan iska dhiganayaa marka waxaan sameynayaa match dhiga inaan kor yar qaado labadoodan isku select gareynaya kadib in yar baan kor yar qaadayaa waxaan sameynayaa markaa inaan haddana aan doorto kuwan aan kor u soo qaado aan qaabka control z baan leeyahay waxaa iga raacay sawirkan aan ka reebayaa kadib timeka ayaan dooranayaa kor baan u soo yar qaadayaa halkaasaan soo gaadhsiinayaa kadib waxaan sameynayaa inaan soo doorto shapeskaan tago right click aan idhaahdo polygonal aan soo doorto kadib saanaan leeyahay halkaasaan ka soo gelinayaa waxaan sameynayaa inaan strokes ka saaro kadib aan caddaan ka dhigto kalarkiisa qaabkaa markaan ka dhigto kadib kan baan control H leeyahay kadib waan soo qaadayaa xaggan baan soo dhigayaa control T baan leeyahay kadib waxaan sameynayaa saa u soo yar qalloociyo aan saa u soo yar weyneeyo markaa aan saa idhaahdo kadib aan check leeyahay waxaan sameynayaa haddana inaan kasla kan qaato aan halkan soo dhigo waxaan sameynayaa markaa Premier League baa hadhay loogadii Premier League iska soo qaadanayaa halkan aan soo dhiganayaa markaa shape-kan meesha kuma jiro kan aan ka saarayaa halkan aan dhiganayaa halkan markaan dhigto waxaan sameynayaa rectangular baan soo dooranayaa dheer kadib xaggan ayaan saa u soo dhiganayaa qaabkaas oo kale ayaan soo dhigayaa kadib waxaan sameynayaa inaan iska saaro kan xaggan aan tago double click aan idhaahdo markaa kalarka aan doorto kadib aan ka idhaahdo aan opacity-ga dhimo markaa qaabkaas oo kale yar dhimo kadib waxaan sameynayaa inaan ciyaartoyda aan ka hoos mariyo aan halkaas u dhigo qaabkaas ayuu sameysantay kalena waxaan sameynayaa markaa waxa ay hadhay waxa weeyaan imika inaan soo geliyo maxaa labada kooxood calaamadahoogii ama loogooyinka kooxaha haddii aad arkayso wax kaloo inaga dhiman ma jiro waxaan sameynayaa inaan tan doorto aan haddana layerkan kala doorto labadooda layer markaas ku doorto haddana fiesta doorto kadib aan soo qaato aan layerkii documentkayga cusbaa imaado aan halkan markaas u dhigo kadib waxaan sameynayaa shape-kan inaan saa u yaro durkiyo aan halkaa ku daayo waxay hadhay waxa weyn inaan xagga hoose rectangular yar soo gashado waxaan sameyn right click baan leeyahay rectangularkaas ayaan halkaas u dhiganayaa kadib waxaan tegayaa move toolkayga saasaan soo dhaqaajinayaa kadib waxaan sameynayaa inaan ka saaro stroke aan kalarkan doorto kadib aan caddaan ka dhigto qaabkaasaan ku diinayaa markaa haddii aad arkayso markaa football posterkii qaabkaasaynu u sameynay qaabkaas u sameynaysa waxaa lagaa doonaya markaa inaad adigu soo sameyso waxa weeyaan insha Allah aad soo sameysto kooxda kale ee Leicester City inaad adigu aad ku soo practice garayso waxa kaloo idin soo dhigi doona description-ka file-kan oo PSD oo aad la digi karto aad wixii aad u baahantay ka qaadan karta insha Allah aad iyo aad baa u mahadsantahay haddii aad muuqaalka dhamaystay fadlan muuqaalka like saar share garee oo la wadaag asxaabtaada wixii faaleed qabtana commentiga hoose noogu reeb. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.